dumarka dhiigga caadada ee goosgooska aana si fiican uga soconaynin hadday 3 maalmood ay joogaanba dhiig ka imaanayo hadday toddobaad joogaanba dhiig ka imaanayo dhiiggana aan dhiig caadi ahayn ee wasaq wasaq camal uu yahay aana si fiican u soconin ama madoobaad aad isku arkaysid ama dhiig maaragtay dheecaan cad iyo dhiig maaragtay jaalo jaalo camal ee mar walba uu ku wareeriyey haddaba fiidiyogan maaragta soo raac Laylo official ku qor YouTube-ka tag subscribe saar like-na saar dhanka TikTok hadda igala socotidna followga iyo love-kana sare igu qaada insha Allah maanta laga bilaabana dhiig goosgoos iskuma arki doontid dhiigga caadada ee saxda ahayd ee maalintaada ay kugu dhici jirto ayaa dib kugu soo laaban doono murugo fara badan haddii ay kugu haysato dhiig aan dhammaanaynin aadan markaa daahirsatidba haddana dib aad iskugu arkaysid haddaba shaahigan dhammaystiro fiidiyooga si qurux badan usoo daawo YouTube-ka imaaw kadibna muddada aad nooshahoo dhan isticmaal muddo 3 bilood iyo intaad jeceshahay isticmaal dhabar xanuun dhiig wasaq wasaq dambo iyo dhiigga caadada khalkhalka mar dambe kuguma soo laaban doonaan dhammaantiinna soo dhowaada walaalayga qaaliga janalkayga waxaa laga helaa waa janal dabiib haddii caado wareer uu ku haayo wuu kuu saxmi doonaa insha Allah haddii ilaahay subxaanahu watacaala kurbo walba ay ku haysateen ilaahay subxaanahu watacaala u tala saaro caafimaadkaagana haddii uu qalqalkaaga jirana janalkayga kusoo biir waa ka faa'iidi doontaa waa ku liibaani doontaa waa janal dabiib waana Laylo official ku qor YouTube-ka tag waana ka faa'iidi doontaa soo dhowaada walaalayga bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayga qaaliga kusoo dhowaada janalka Laylo official haddii aad igu cusub tihiin subscribe like comment share haddii aad hore ila joogteenna like comment share dadka cusub ee igu soo biiro mahadsanidin dadka hore ila joogana mahadsanidin mahadcelintiinna marnaba kama daalo walaalayga qaaliga aad tihiin sida quruxda badan la igu sheer gareynaysiinna waa idinkaga mahadcelinayaa asxaab badan oo xanuunsan ayaa jiro u sheer gareeya haddii adiga aad ku caafimaatay iyo haddii adiga u baahan tahay nagu soo biir meesha waxaa inoo yaalo xulbad ayaa miiska noo saaran xulbadanna waan soo shiiday iyadoo budo ayaana halkaas kusoo shubay xulbadan wuxuu ku siinayaa feeradaada hadday ibar tahay ama birtaada ama haddaad taqaanid ayronkaaga haddii fitamiin D-gaaga fitamiin D3-gaaga oo laaw yahay adi fitamiino fara badan ayuu jirkaaga siin doonaa haddii dhabar xanuun uu ku daashaday sida loo isticmaalayo fiidiyooga dhammaysta meesha waxaa inoo yaalaa koobkii iyo xulbadii shiidneed kadibna biyo karkar ayaan soo qaadanaynaa biyo karkarka ayaan inoo diyaarsan haddii maaragta dhabar xanuun uu ku daashaday ama dhiig wasaq wasaqa mar walba kaa socdaadan daahir noqonaynin qaandadaas yar soo qaado subaxda hurdada markaa kasoo kacdid halkaas ku shub marka koobkaas ayaad ku shubaysaa biyihii karkarka ayaad ku daraysaa muddo 30 daqiiqo ayaad la dhigaysaa kadibna waa cabaysaa subaxdii hore hurdada markaa kasoo kacdid iyo habeenkii markaa seexanaysid waxyaabaha ciladahaas kuu keenayo waa calool fadhiga calooshaada dhaqaaji mar walbo haddii muddo 3 bilood aad isticmaasho caadadaada xilligii aad jeclaan jirtay ay kugu dhici jirtay ayuu dib kugu soo celin doonaa hormoonkaagana wuu sixi doonaa hadda waan daboolaynaa biyihii kululaa ayaan ku shubay kadibna 30 daqiiqo ka bacdi ayaan isku soo laaban doonaa insha Allah xulbadan wuxuu ku siinayaa tamar fara badan ayuu ku siinayaa fitamiinaadka kaa maqan ee dhiigga khalkhalka kaaga daraayo ama dhiigga khalkhalkaaga dhigaayo ayuu aad dib kugu soo celinaya hormoonaadkaagoo saxan ayaad dib iskugu arki doontaa caafimaad qurux badan jirkaagoo qurux badan xulbadan aad iyo aad waan ka qaaday 30 daqiiqo ka bacdi waana la cabayaa xulbadan rag iyo dumarba way isticmaalin karaan aad iyo aad ayuuna dhabar kugu fiican lafa xanuunka iyo baar xanuunka haddii fitamiinaadkaaga all eber waa lagu yiraahdo fitamiin fara badan ayuuna ku siin doonaa ka faa'iideysi wacan gabdhaha maaragtay ama dumarka farjigooda maaragtay cuncunayo haddii ay daa'intaan infectionka kaliya ayuu kaa dilayaa infectionka gudaha ku jira ee makaanka mashaakilaadka tubooyinka dhammaan dabeeci wuxuu kaa keenaya qoyaankii dabeeciga ahay
dhiigga caadiga ahay oo dumarka ku dhacayo oo dabiiciga ahay ayuu toos kugu keenayaa. Ka faa'iideyso, ha murugoonin, weligaana ha walwalin dhakhtarka niyadda inuu kaa soo dilo mooyaane wax uu daawo uu ku siinayo male. Daawada ku siina 2 bir markaa qaadatid dib ayuu dhiiggiina kugu soo laabanayaa. Balse xulbadan haddii aad daa'imatid, dhiig furan iyo dhiigga wasaq iyo dambe iskuguma arki doontid. Marka xulbadan ha la cabo, shaahigan saan u samayso, subaxda hore cab. Wixii wasaq gudahaaga ku jiro, dhagxa calooshaada ku jiro, calool fadhi haddii aad leedahay, korkaaga hadduu murugo ka muuqan jiray, kor qaleel haddii aad lahaan jirtay, wejigaaga haddii mar walba ay tiif ka muuqan jirtay, cijiyahaaga hadday daadan jiray, timahaagaba dib ayay kugu soo laaban doonaan. Jir qurux badan, weji qurux badan, farxad qurux badan, walwal hadduu ku haayo, xulbadan keliya cab. Xulbadan haddii aad daa'imatid ood cabtid, adiga dhan waxaa noqonaysaa waa furfurmaysaa, habi ayaad ku soo laabanaysaa. Dhiiggaaga si qurux badan ee si toos ayuuna kugu dhici doonaa. wasaq dambe iyo dhiig goos dambe iyo 2 bir markaa qabaysatid, haddana maalin saddexaad, maalinta afaraad haddana dib dhiig ugu soo noqdo si fiican kaaga soconaynin, dib iskuguma arki doonto biidnillaahi alkariim. Ilaahay subxaana wa tacaalaana caafimaad ha idinkugu daro. Inta xanuunsan, inta muraad lana ilaahay subxaana wa tacaala allah siiyo muraadkiisa macsi lahayn. Inta awlaad raadinaysa, awlaad saalixiina dayibiina baariyiina allah ku irsaaqo. Inta haysatana allah u barakeeyo. Dhammaan inta xanuunsanna allah caafiyo. Inta caafimaadka qabtana ilaahay u siyaadiyo. Dhammaan waxaa idin leeyahay soo dhawaada walaaleyga qaaliga. Channelkaygana waa ka faa'iidi doontiin, waxyaabo badan ayaa ka heli doontiin. Marka meeshaan waxaa inoo yaalo shaahigan. Xulbada marka fitamiinaadka B2 alifka jirka ka maqan, B1 oo kale caadi ayuu kugu soo celin doonaa. waa micnaha waxaa ka mid ah geedaha maaragtay jirka nafaqada ku soo celiyo, ama geedaha wuxuu ka mid yahay jirka maaragtay saliid siiyo. hadday saliidaada jirka eber ka tahayna wax faa'iido leh aad leedahay ma lahan. Marka jirkeena waxaa u baahan yahay saliid ilaahay ugu talagalay ee jirkeena uu ku noolaan karo. Saliidaas ayuu ku siinayaa. Haddii ma aragtay fitamiinaad ilaahay subxaana wa tacaala jirkaaga ugu talagalay ay ka maqan yihiin, haddaba xulbadan ayaa ku sii doonto. Xulbadana ma aragtay haddii aad 7 maalmood toos u isticmaashid, urkiisa laguguma arkaan. Laakiin maalin haddaa cuntid, maalin aad dhaaftid, waa wixii kaa shiirays. Laakiin haddii aad daa'imatid, ragga iyo dumarka ay daa'intaan, wax shiira uu leeyahay malahan, jirkaagana wuu la qabsan doonaa. Soo dhawaada channelkana subscribe iyo saara, asxaabtiinana u share gareeya. Waana ku mahadsantahay sida quruxda badan.